magacayga waxa waaye Maka Qaasim waxaan la shaqeeyaa xuquuqda haweenka ee Kamude Women's Rights Network oo u ololeeyaan dumarka iyo caruurtaba maanta waxa meeshan iskugu imaanay arrin aad aan uga xumaanay anaga hooyooyin hadaan nahay iyo inta u ololeynaysa waxa xuquuqda bini'aadanka maamada nafteeda ku waysay shalayto magaalada Ifo iyadoo oo raashin qaadanayso oo hay'adda ay bixinayeen waxaan leeyahay raashinka markii la bixilayo waxa la rabaa taqsuun in loo bixiyo dadka in la kala qaado oo la ogaado yaa liidan yaa daran maamooyinka ilmaha nuujinayaan bilcaanta xaamilada ah kuwa duqowda ah dadka oo naafooyinka ah in la kala qaado oo dadka daran la siiyo fursada hore raashinka in la siiyo maxay yeelay hay'ooyinka isku imaadeen oo meesha raashinka ka bixinayaan in kasta qaynuun buu leeyahay sharci bay leeyihiin sharciga ay leeyihiin ay dhigteen oo markay fadhiyaasha imaadaan ay dhahayaan sharci baan leenahay sharcigana ay meesha ay joogaan ay alaabta ku bixinayaan ay dadka ugu amal fal ugu sameynayaan ay ku isticmaalaynin waa arrin aad u qaab daran annaga waxaan leenahay waxaan rabnaa inay qadiijo ay hesho xaqeeda iyadii canugeeda oo adduunka ba aan arkin oo meesha ay nafteeda ku waayeen meeshana waan tagaynaa haddii Ilaahay idmo waxaan leenahay ummadda meesha ku nool wixii dhacay qarsanin dadka ha hadlaano codkooda ha baxsadaano dawladda wax bay u qabani shirkada u ololeeyaan xuquuqda bini'aadankana diyaar bay u yihiin inay gacmo furan ay dan kula qabtaan waxaan leenahay dadka meesha jooga dawladda meesha joogto hay'ooyinka hay'adaha oo meesha joogan oo shaqadan ka wada shaqeynayaan arrintii dhacdo inay soo bixiyaan inay la hadlo inay qofkii xaqooda loo raadiyo ayaan leenahay magacayga waa Fatuma Ahmed Baadi oo u ololeeyay xuquuqda insaanka aniga iyo walaaladay iyo dadka wada shaqeynta naga dhaxayso oo u ololeeyay xuquuqda insaanka maanta waxaan u soo banaan baxnay inay gabadha walaasheen oo raashin ay qaadanayso darteed oo xaq ay u lahayd inay walaasheen Khadiija inay maanta nafteeda ay ku wayso ayadii ilmihii uurkeeda ku jira ee maanta naftooda ay waayaan marka waa nasiib darra maxaan u sheegi rabaa hay'adaha NATO international baan dhahan adduun weynaha idil baan ka shaqeynaa bay dhahan maxay u soo baxeen inay xuquuqdii markaas dadkii ay la rabay inay xaqooda siiyaan inay dulmaan miyay u soo baxeen horta waa mid su'aal meesha ku jirto midda kale doorasho maalin hore imaado hadda aan ka soo baxnay doorashadii streams wax la dhihi baa loo galay magac xiblo wax ka bilowdo intay galayeen intay ka qaadanayeen waxooda maxaan dadkii NATO 30 sano iyo 30 dhowrka sano la deganaa oo walaaladan aha maxay xaqooda ay ku laayihiin maxaa maanta leen u qasbay inay intay leen istaagto maamo 9 bilood uur inay maanta nafteeda ku wayso raashin oo waliba suus loo beegayo oo ahayn maanta loor wax la siinayo nasiib darro waay madaxdeena aan soo dooranay waxa leenahay waad ku ceebeysantiin horta runtii in la isku sheegaal rabaa waad ku ceebeysantiin dad maanta anaka namudna oo maanta anaka nagu hoos jira oo magangeliya naga soo raadsaday inay maanta naftooda ay ku waayaan raashin suus ay qaadanayeen horta taa waa nasiib darro madaxda la soo doortay oo ka imaadeen Garissa County waa cambaareenina ma ogolin baan leenahay justice for Khadija justice for Khadija justice for Khadija cadaalad baan u raadinayna Khadija insha Allah waanu ku guuleysan doonaa waan idin iimaanayna reer Dadaab iyo reer Dadaab sub county iyo Ifo insha Allah